gobolka Awdal dad buu leeyahay mas'uuliyiin buu leeyahay ayaga ayaana soo dirsadeen xildhibaan Maxamed Abiib waxa soo dirsaday shacabkiisa dadkiisa iyo dadkiisa wuxuuna meesha ku joogaa matalaad ritaaban kartana malaha maalintii la taabtana shacabka gobolka Awdal gabi ahaanba waxay ka tashan doonaan sidii haddaba qorshaha uu yahay inay aayahooda ka tashadaan qorshaha baryahan maamulka Somaliland ee runtii kibirka ka muuqdo ee muujinayso in xildhibaanadii baarlamaanka ee ka shaqeynayay golahaasayto warqad ay ka soo qoreen dad ashxaas ah iyo mas'uuliyiin isku sheegaya kana matalaya runtii beelaha meesha wada daga waxaan rabaa saddex qodob inaan halka ka dhaho gobolka Awdal dad buu leeyahay mas'uuliyiin buu leeyahay ayaga ayaana soo dirsadeen xildhibaan Maxamed Abiib xildhibaan Maxamed Abiib waxa soo dirsaday shacabkiisa dadkiisa iyo dadkiisa wuxuuna meesha ku joogaa matalaad ritaaban kartana malaha maalintii la taabtana shacabka gobolka Awdal gabi ahaanba waxay ka tashan doonaan sidii haddaba qorshaha uu yahay inay aayahooda ka tashadaan waxaan ku ognahay Muuse Biixi mar walba in uu hagardaaminayo horu socodka doorashooyinka Somaliland waxaan ognahay oo kale in uusan u ogolayn shacabka gobolka Awdal wax miisaaniyada 25 milyan oo soo diiday hadda si la sheegay oo galihii baarlamaanka uu ku soo celiyay qodob labaad haddana si aadaya inuu xildhibaan matalaya ummadiisa dadkiisa haysta inuu dhaw xilka baan ka qaadaya war meesha waxaan ku leenahay Muuse Bixiyow reeraha meesha isla leh ha kala geyn gobolka Awdalna ninka hadii la taabto gobolkii baa la taabtay Somaliland uu dhigmaa Maxamed Abiib hadaad u haysato nin keligii socda maaha waa nin matalaad ku jooga meesha waa nin cod shacabiyad ku jooga meesha waxaan leenahay ka waantooba ummadana meesha wada deganna ha isku dirina waxaan leeyahay shacabka ka soo jeeda gobolka Awdal dadka odayaasha ka hadlay aad baa u soo dhaweynaya gobolka Awdal waa runtii dad aqoon iyo cilmi iyo xikmad iyo mataqaana haysta bad iyo garoon iyo dhul iyo wax walba oo dakhliga ay heli karaan iskuna filan waxaan rabaa idin sheego inaad heerida iska qaadaan umadiinana aad difaacdaan odayaashii difaaca ku mahadsan yihiin inta kalena aad dibadda u soo baxdaan aadna iska wareejisaan maamulkan guracan ee Muuse Biixi qodobka ugu dambeeya kalaamka uu yiri gudoomiye ku xigeenka Cali Xaamud Jibriil ayaa inoo ah kalaan asaana ku taageersanahay asaana mataqaana garab taaganahay Soomaaliland hadii inay si jirto la rabo xildhibaan Maxamed Abiib faraha laga baxo waa idin salaamaya